salaamullaahi calaykum halkaan nagala socotiin waa tusma news fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe garey sidoo kalena share garey like saar mahadsanidin waxaa laga yaabaa inaad maqashay qisadii caan baxday ee jacaylkii cilmi boodhari iyo hodan oo la sheegay in cilmi uu u geeriyooday jacaylkii uu u qaaday hodan haddaba madhabbaa jacayl waa loo dhintaa waa magaca buug uu ka qoray hooyadii rashiid maxamed shabeelle oo ah inan ay dhashay hodan buuggan waxaa markii ugu horraysay lagu daabacay madbacaddii qaranka ee soomaaliya sannadkii laakiin muddo 40 sano ka badan ayaa mar kale dib loo daabacay buugga madhabbaa jacayl buuggan ku saabsan taariikhdii jacaylka ee hooyada hodan iyo boodhari magacan xaggee ayuu ka yimid horta magaca madhabbaa jacayl waa loo dhintaa waxaan ka soo qaatay marxuumkii ibraahim gadle allah yarxamo riwaayad baa jirtay loo 70-yihii la odhan jiray madhabbaa jacayl waa loo dhintaa riwaayaddii uu sameeyey marxuumkii abwaankii caanka ahaa ibraahim gadle ilaah u naxariiste buugga hadda waxaa ku cusub waxa weeye saddex qaybood bay cusub yihiinoo waxa weeye qayb ah anigu dhibaatadii aan kala soo kulmay markii aan buugga qorayey qaybta labaad ee ku cusubna waxa weeye dhibaatadii saamaysay reer shabeelle aabbahay special aabbahay anagu dee mabaan dhala markii hore dhibaatada uu kala kulmay bulshada kala kulmay taasuna way ku cusubta waagii hore taas way ii baneen weyday waqtigu ii banan waa inaan ku soo daro markaan iminka soo saaray edishinkan labaad waxa weeye qaybtan labaad soo saaray ee buugga waxaa ka soo wareegtay ilaa iyo 42 sannadood oo 75 markuu soo baxay ka hor 72 baan bilaabay researchka iyo baaritaanka taariikhdan bilaabay marka hadda 2016 waxay noqonaysaa ilaa 42 sannadood intii ka soo wareegtay qaybtii hore iyo qaybtan u dhexaysay marka rashiid maxaa ilaa muddo 40 sano ka badan marka keena in hadda un daabacaad labaad aad samayso horta waxaa jirta bulshadu sii hore maaha aniga qudheeda waxyaaba fara badan qabiiyaha baa jiray oo ana markaa ka hadal hore uga hadal maxaa ka mid ah waxaa ka mid ahayd waxa weeye gabayda qaarba qabiil baa ku jira waagii hore censorship baynu lahayn yacni faafreeb ha oo dee lama ogoleyn waxyaabaha qaarkood in la qoro maadaama bulshada dee fasax dheer la galay oo magaraysa wax isbedelayn waxyaaba fara badan ba kugu soo kacay aniga reserve aniga ii qarsoona markii hore maadaama ay ii suurageli weyday ayaan ku dhiiraday maxaa ka mid hadda carabaabto oo dhegeystayaasha la wadaago waxaa ka mid a waxa weeye aniga horta dhibaatadan shakhsi ahaan kala soo kulmay wax la soo koobi kara may ahayd oo qaybta ugu horeysa buugga iminkan cusub bay ka hadlay dhibaatooyinka anigu aan kala kulmay oo dhan waxaa ka mid a umalaynaya ina hodan inaad ka xanaaqi jirtay waxyaabaha keenay qoritaanka buugga ama dabagalka sheekadan waxay ahayd waxaa ka mid a dee ina hodantaas waa ka mid a nin walba wuxuu jecel yahay dee in loogu yeero waa ina hebel ama hebel baa dhalay laakiin markaad meel walba soo gasho meel lagu yidhaaho lagu garan waayo ama raba in lagu garto oo aad isa sheegto oo lagu yidhaaho haa waa ina hodan waxaa imanaysaa xoogaa waan qawaday waagaa laakiin hadda waaban iska ogolaadoo dee dantaaba tiriya maadaamaad wixii qorayso oo dee shekadii baa marka hore waan ka dhacsanaa lakiin imika shekadii baan aad u dhexgalaan fahmay waa kan marka hadda gacantan ku hayaa buugga aad qortay ee ku saabsan jacaylkii hooyada hodan iyo cilmi boodhari bogga hore marka waxaa ku sawiran qof haweeney ah oo dhagadhaga xiran oo timuhu u qaawan yihiin hoosna waxaa yaalla qabri baa ku sawiran halkaa dhinac waxaa ka yaalla kaban bal haddaad sharaxdo waxa sawirkan uu ka tarjumayo horta sawirkan waxaa sameeyey nin la odhan jiray talyaaniga oon ka wada hadalay oo waxaa la odhan jiray ricardo comasi baa la odhan jiray oo wuxuu shaqayn jiray madbacadda qaranka xamar buu shaqayn jiray sketchka markaan soo eegnay waxaan anigu tilmaamay sida hooyada u eekayd marka qofkan waxaad ka matalaysaa hooyadaha hodan ha waana risan waxa weeye 95% saasa u eekayd muuqaalkeeda haddaad sharaxdo qofka na dhegeysanaya timahan waxa weeye awal dadkaynu ina yar bay ahayd anigu waxaan uga jeedaa waxa weeye timahan qaawan imanka waxaan uga jeedaa waxa weeye inaku raxan markaa dhoocul bay dhahaan
hablaha yar markay Dhoocil baa hayay. ha marka jacaylkanu yimi marka sidaas awgeed baan uri timaha waa intii aysan qaan waa intayna qaan gaadhin marka waxaa ku jira reflection fara badan ayaa ku jira meesha moogta sidaasaan uga dhigay aanan ugu xidhin masari ugu xidhin ina yar ahaydoo magaranaysaa aan qaan gaadhin oo dee guriga joogtaa ayaan sketchka usoo qaatay moogta qabrigan hoos yaalana qabrigan waxa weeye waxaa dee maadaama uu dhintay madhabaa jacayl waa loo dhintaa kamankuna waxa weeye la socdaa waxa weeye de wixii hadda maanta waa lagu heesaa qisada cilmi boodhari waa lagu heesaa gabaydiisana damay lumin marka maadaama lagu heeso taasaan soo qaato bulshadu inay imika ay ka dhigtaan halqabsiga jacaylka ayaan kamanka geedka ugu tiiriyey marka waa saddex dhinac sawir muujinaya hodan cilmi boodhari allah naxariiste iyo kabankii oo muusikiya oo wixii ka hadhay ah taariikhdooda laga dhaxlo ah maanta waxaan xusuustaa maalin dhowta heesaa dhegeysanayo oo qaado nin layidhaaho oomaar layidhaaho uu leeyahay walba sidii hodan haygu noqonin waxa weeye ilaa maanta ayaa dee loo soo qaataa wixii loo soo qaataa halqabsi u noqotay moogta sidaa ogeed baan kamanka u raaciyey sawirka jacaylka marka haddaan taariikhda marka usoo daadegno saamaynta ay adiga iyo qoyskiina idinku yeelatay waanu ka hadli doonaa laakiin haddaan marka hore ku bilaabo taariikhda jacaylkan si kooban haddaad soo koobto sida uu ku bilowday iyo qaabka uu dhacay jacaylkanu wuxuu ahaa wado qura dhinac qura u ahaa hooyadayda inayo sagaal jira dee jacayl iyo hasaawo iyo waxaas dee agteeda muu oolin maadaama cilmi jeclaaday waxay noqotay jacaylkii isagu markaa uu gebiyey oo magaranaysaa dareenkiisii wuxuu ku muujiyey waxa weeye waa gabay si uu magaranaysaa dadka u tuso inuu wax jecel yahay laakiin tan ah hodan iyo cilmi waa dhaweyto waxaan isli maka saartaaba hodano waa jacaylkii dee cilmi oo qura haddana maadaama markii horeba ama dad taariikhda ay usoo qaataan hodan iyo cilmi sidaa awgeed baan ugu soo daray laakiin waxa weeye waa one way dhinac quri u socday jacayl dhinac quri u socday muwahan jacayl ay wadaageen hal dhinac buu ahaa waxaad ku qortay saan u jeedo waxaad soo qaadato buuga ku jira gabayo fara badan oo ku saabsan jacaylkoodii haddaad mid iyo laba ka xusto kuwa sida aadka hadda loo xasuusto dadka soomaaliyeed ay isticmaalaan waxaa ka mid a gabaygan hadday ila wax qabanayso oo lagu qaboobayo ama qurux la daawado marun aadma ku qanacayo aniguba khatraan soo arkayo qaararkii hodane gabaygu lahaa iyo gabaygii aan uu lahaa harhka galay oo isaga dee aan isaga qudhisa saxnay oo sidii loo sheegay muu ahayne dib aan uga daba tegay oo aan soo ogaaday inaanu odhanba harka gala hurdada way xuntee hooy maxay seeshay ba inaan habaar qabo maxaadoni weydaarshay marka taa baa qaldaneed waa khaldanayd marka taa maxay ahayd midda saxda marka harka gala hurdada way xuntee hooy maxay seeshay dahab lama hadleeyee maxaan daawad ku ilaaway saasay ahayd saamaynta haddaan usoo daadegno saamaynta ay kugu yeelata adigu shakhsiyan iyo aabbahaaba haddaad ku bilowdo aniga horta shaksiyan waxay maxaabiyi ugu horeeyey aan kala kulma waxay ahayd dee bulshada kaa hor imanaysa oon dee ogoleynba horta waxaad moodaa dhinacna bulshadii iyagii baaba wixii ku raaxaysanaya oo halqabsi ka dhiganaya markii aan qorayna bay ka hor yimaadeen waxay dhaheen sida hooyadii buugga ka qoraa oo waaba nin waana laba wax isqabta maaha waxa weye haddii dee ay tahay taabuu tahay waa inaan sababa qaadin yacni wax la ceebsado laguna heesin lama soo qaadin weeye oo de meel laska dhigo laakiin haddii dadkii ay soo qaadayaan oo halqabsi ka dhiganayaan oo lagu heesayo oo tilmaam laga soo qaadanayo ma aha markaa aniga kole lagu idhaaho muxuu buuga u qoraya oo waxaa iska hor imanaya weye bulshadu waxyaabaha tan aabbahay waxa ugu dareed waxay ahayd waxa weeye dee nin walba oo xaas leh oo caruur leh oo xaas leh oo gabadh qaba oo gabadhii suuqa looga gabeeyo qudheedu wax weeye waa dhibaato aad u weyn weye dhaqankeenana maaha waxaynu aynu u dulqaadano de horta maba ahaba waayo bal ii sheeg ninka ogol isagoo gurigiisii awridiis gurigiisii joogto suuqa in looga gabiyo
marka saamayntaas bay ku yeelatay aad waxay ku keentay waxa weeye waxaan xusuustaa maalinaan ku idhi hortaaba waxaad hooyada ugu gabiye weyd ilaa kan cilmi u gabiye muxuu ku yidhi wuxuu yidhi anigu mar walba waxaan isilaahaa buu yidhi war ninkan intaad odhan lahayd unbuu kuu yidhi intii aad odhan lahayd unbuu kuu yidhi marka halkaasaan kaga hadhay isagana dee aqoon bay isu lahayn cilmi aad bay isu yaqaaneen dadku kastana ogeen oo dee magaalo lagu kala dhuunta may ahayn berberi magaalo yar bay ahayd intaa daaroo dhagaaweynayo un bay ahayd kalaweyna is yaqaanay ahayn haddana magaaladu da ku filan dad u gabiyo xaaskiisa u gabiyona dee waxay ahayd wax markiiba hore laga maqlayo may ahayn meel wax muddo soo soconayay may ahayn inkastuu gabaya ka soo diray burco ka soo diray gabaya ka soo diray saylac ka soo diray gabaygii dabeel yahay aduulayo orodka deynayne iyo kii uu burco ka soo diray markuu uu lahaa mid ilmaadaryihiin uu ku lahaa inaadan hagaagtay haddaad hiliga sii qaadid hartiqa ilaa kuguma rida hagabihii sheekhe mudqa musiibo baatoo hal la siiyay adigana haliya kuu kortay horinta daa'uude buugga marka su-aal weeye ciwaankiisa marka buugga waa su-aal madhabaa jacayl waa loo dhintaa su-aashaa ma ka jawaabaya marka aad halka dhibicda ugu dambaysa waa su-aashan weydiiye aabahay weydiiyaan ku lahaa markuu lahaa intaan odhan lahaa buu ii yidhi waxa weye uu qiray cilmi inuu jacayl u dhintay uu qiray haa waa tahay qofka marka soomaaliyeed ee qisadan qof walba ay taqaano soomaali ah ay ka wada dheragsan tahay buuggan akrista waxa uu ka qaadanayo ama ku xasuusanaya maxay tahay waxa weye dee horta sidii haddaad u eegto jacaylku wax inagu cusub maaha rag badan baa soomaalidu jacayl ku dhacay ismaail cagaf iyo dadii lowday rag fara badan waa laga heeso waa laga gabiyey jacaylku wax inagu cusub maaha marka laakiin kan waxa laga qaada waxa weye cilmi wuxuu noqday oo ahaana boqorkii jacaylka boqorkii hagadaamulmisow markuu lahaa almaraawi marka taas ayaan hadhay oo dadku waxay u haystaanba inuu yahay boqorkii jacaylka aad iyo aad baad mahadsan tahay adaa mudan